السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرضي كسودو هذا أن عشر كيني سجالات أن ما أنتوا حنقول دون عشر كيني سجالات لا بقيبة بزوج دون إن شاء الله قيبت كوا سؤاله صح يا خلاده وعشر كي شلي لسكوي دين دون إن شاء الله قيبت لبعضه إن برنو سيدا قفلو فيديو حق وشيء يالو أوكي حق وشيء يالا أما حق وشيء دقي alright qaybtan koowaad waxay la xidhiidhtaa qaybtii ugu horeysay oo ah sawirkan ayaa dib ugu noqonaysa insha Allah sawirkan ayaa su'aalaha la iska weydiinaya marka sawirkan waxaad ka aragtay saxa waxay noqonayaan true wixii aad ka arag ka weydo ee khaladan waxay noqonayaan maxay false bay noqonayaan okay aan eegno my room is big qolkaygu wuu weyn yahay sax mise khalad adoo cashirkiisa la eegaya okay my room is big qolkaygu weyn yahay ma sax baa mise waa khalad markaan cashirkan dib ugu noqono okay and there are 4 chairs at the table miiska waxa ag yaala afar kursi baa miiska ag yaala okay ma sax baa mise waa khalad mise ma marunba mise waa been sorry marunba mise waa been there is a computer in my room qolkayga waxa yaala computer baa qolkayga yaala okay there are 2 sofas in my room laba kursi kuwii dhaadheeraayay saddexda qof ama afarta qof ku fadhiisanayeen ayaa qolkayga dhex yaala okay there are books in the bookcase buugag baa ku jirta shalfigii buugta lagu ridayay sax baa ama marunba mise waa been my room is not comfortable qolkaygu maaha qol raaxa leh sax baa mise marunba mise waa khalad ama waa been okay so lixdan su'aaloodba waxay ku saabsan yihiin waa maxay cashirkii shalay aan kasoo wada hadalnay okay sharxaadii dib u dhageyso haddaad doonto ama sawirka dib ugu noqo oo eeg kadib wixii saxan ama runa waxaad leedahay true baad ku qoraysaa wixii beena ama khaldan waxaad ku qoraysaa false okay aan kusoo celiyo my room is big qolkaygu wuu weyn yahay there are 4 chairs at the table afar kursi ayaa miiska ag yaala there is a computer in my room qolkayga computer ayaa dhex yaala there are 2 sofas in my room laba kursi oo kuwii dhaadheeraa ah ayaa qolka dhex yaala and there are books in the bookcase buugag ayaa ku jirta khaanadii buugagta lagu goranayay and my room ka ugu dambeeyo ah my room is not comfortable qolkaygu maaha meel raaxa leh okay qaybta adiga ayaa ka jawaabi doona okay qaybteena labaad haddaan gudagalno waxay noqonaysaa maxay where is xagee buu yaalaa where are xageeda yaalaan okay ama meye ayay noqon karayaan ama me okay me away ama where are awen ama xagee yaala yani alright where is wax loo isticmaalaya markaad hal shay kaliya raadinayso where are waxaa loo isticmaalaya maxay markaad waxyaalo badan raadinayso read the text and answer the questions okay su'aasha waxaad akhridaa dib u akhriyayna maxay cashirkiiban dib u akhriyi doonaa su'aalaha soo socdana waynu ku jawaabi doonaa okay saddexdan su'aalood baynu ku jawaabi doonaa where is the carpet where is the carpet roogu xageebu yaalaa xageebu roogu yaalaa where is the carpet roogu xageebu yaalaa okay sheekada waxaan ku dhaxaagan roogu xaguu yaalay sawirka dushiisa soma ama dhulka okay the carpet is on the floor the carpet is on the floor
okay marka su'aashan lagu weydiiyo aad jawaabta waxaad ku bilaabaysaa mar walba shaygii lagu weydiiyey ayaad ku bilaabaysaa. For example, haddaan example idin soo qaado aan ku idhaahdo like where is my pen? aan idhaahdo qalinkaygii me. Sorry. Okay, haddaan ku idhaahdo qalinkaygii me, where is my pen? Where is my pen? qalinkaygii me. haddaan ku idhaahdo uu qalinkayguna saaran yahay miiska dushiisa. qalinkayguna wuxuu saaran yahay miiska dushiisa. waxaan ka bilaabaya maxay su'aasha waxaan ka bilaabaya maxay ama qofka jawaab wuxuu ka bilaabaya maxay. okay wixii lagu weydiiyey waa maxay qalin soo maaha qalinkii baad ka bilaabaya soo maaha. okay waxay noqonaysaa the pen. okay qalinku is on the table. qalinku wuxuu saaran yahay miiska. qalinku wuxuu saaran yahay miiska. okay where's my pen? the pen is on the table. qalinku wuxuu saaran yahay miiska. okay mar walba waxaad ka bilaabaysaa shaygii lagu weydiiyey waxaad ka bilaabaysaa haddii qalin lagu weydiiyo the pen baad soo qaadanaysaa. okay kadib waxaad raacinaysaa is ama r. kolleyba hadduu jamc yahay r bay noqonaysaa, hadduu single yahay is bay noqonaysaa. markaad shayga ku bilowdo waxaad raacinaysaa is ama r kolba sidii jawaabta lagu weydiiyey. okay su-aasha haddii ku jirto is baad ka dambaysiinaysaa, haddii su-aasha r ahaydna r ayaad ku xijinaysaa. laakiin mar walba jawaabta waxaad ka bilaabaysaa maxay shaygii lagu weydiiyey, kadibna waxaad ku xijinaysaa xaggii ay yaaleen locationka. okay hadda locationkeena waa maxay? waa xaggee? waa table, on the table soo maha, miiska dushiisa soo maha. that's it. okay aan example kala bixino. aan idhaahdo where is the toy? okay where is the toy? okay where is the toy? okay jawaabta waxaan ka bilaabaynaa waa maxay? shaygana la weydiiyo waxay waa maxayna la weydiiyo waa maxay? toy baana la weydiiyo soo maaha, ama wixii ciyaal ku ciyaarayeen the toy ayaad ka bilaabaysaa. the toy. okay su-aasha maxaa ku jira? is miss r. is soo maaha, is. okay xaggu yaalo ayaan ku xijinaynaa. marka is on the bed. sariirta ayuu dul saaran yahay. okay sariirta ayuu dul saaran yahay toygu, ama lucbada ciyaarku ku ciyaarayeen waxay dul saarantahay maxay? sariirta ayay dul saarantahay. okay so marka waxaa samaynaysaa aan labadaas su-aal saddexdaas su-aalood waxay ka yimaadeen cashirkii shalay, waxay ka yimaadeen eeg kadibna ka jawaab. okay where are the chairs? kuraasta xageeba yaalaan. where is the computer? computerka xageebu yaalaan. where are the books and the cookbooks? bugaagtuse xageeba yaalaan. okay mid walba meeshuu yaallo wuxuu noogu jiraa soma waan soo qaadanay soma wuxuu noogu jiraa exercise kan xaggan ayuu ku jiraa. mid walba meeshuu yaallo computerka meeshuu yaallo
buug meesha yaalo iyo kuraas meesha yaalaan mar walbana jawaabta waxaad ku bilaabaysaa maxay shayga lagu weydiiyey sidaan xaggan ku bilowno oo kale xaggan waxna la weydiiyey the carpet soma jawaabta ku bilaabanaysaa ka bilawnay the carpet kadibna waxaa soo qaadanaysaa is ama are wixii su-aasha ku dhex jiran baad xaggaa soo dhigaysaa is ama are kii su-aasha raacsan ayaad xaggan soo dhigaysaa kadibna waxaad sheegaysaa xagguu yaalay oo ah locationka ayaad sheegaysaa oo ah on the floor dhulka where is the carpet mee roogi the carpet roogu wuxuu yaalaa on the floor okay su-aalahanna adiga ayaa markan sameynaya ask questions qaybta labaad waxaan ask questions adaa su-aalo weydiinaya dadka the books are on the table buugagtu waxay saaran yihiin miiska okay buugagtii meeya adaa oran doona the books are in the bookcase buugagtu waxay ku jiraan khaanada okay waxaan kaa doonaya su-aasha waxay noqonaysaa maxay buugagtii meeya okay the chair is at the table okay miiska wuxuu yaalaa ama kursiga wuxuu yaalaa miiska agtiisa kursigii kuraasta mee ama kursigii mee adaa oran doona okay waad garanaysaa jawaabta akhri markaad jawaabta akhrido the armchair is near the door kursiga gacmaha la saar meesha gacmaha la saartana ama kursigii weynaa waxa uu u dhow yahay albaabka kursigii miiban kaa doonaya markaa toys waxay saaran yihiin sariirta iyo the sofa waxaan kaa doonaya toyska mee inaad xaggaa geliso okay jawaabaha waxaad kusoo diri doontaa insha allah telegramka aad kusoo diri doontaan anaa idinka jagarin doona insha allah cashir soo socdana jawaabaha qaar ayaan bixin doonaa sidaa ay nabadgelyo arday intaan cashirka tobnaad ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakatu